askarta iyo dhibaatooyinka aad ku badan aan kula kulmayno waxaan u baahnaa bulshada Soomaaliland wasaaradda arrimaha bulshada iyo qoyska annagoo ka codsanayna in xarumaha dib loogu celiso waayo waxaan u bixi dalka ubadkii dadka iyo indhiga danta waliba ubadkii soo karay u soo kacay dalka waxaan u baahnaa birri waxa naga soo bixi kara wasiiro madax aqoonyahan dhakhtarro qaar caafimaad waxaan u baahnaa markaa waxaan u baahnaa in wax naloo qabto annagoo ubadkii darbi jiifka iska saaxadaan baa kartoon bay ku saaxadaan baadaasoo kaliya wadaan magarat waxaad ma caawin karisiin oo wax nagu tirisiin abbaare wasi wanaagsan walaalo ugu xaaladaha bulshada ku wato walaal dhaxal xun baan nahay sida wax xilligii ugu qaboobay wadiga arkay 9 toban bal soo qaadnay 9 ka bacod waxa dhaxan baan ku weyn dee waa ku maadsantii koorkaanoo ka taajirnoo ka helaysa waxaad ururka midnimo voluntary organization oo ku caawiyo qorarkan waxaad ugu ducaynaysaa walaal waxaan ugu ducaynaa ilaahay iyagana sidaa inoo caawiyeen iyagana ilaahay nasr waa anu furo misaanka xasanaadkana u saaro لأنه هو بحنا أنا مساكين تقدر كتشتغل أنا حرامي تقدر كسكنه أقول لكم هاي المجال هي نقبلين دولتنا محقق أساسا دولتنا إحنا نقول عتصلنا هنا الريال نص مسوي بيرو وحبر شوي بيرو يا دولتنا الريال بيرو عتصلنا أساسا نقول عتصلنا دولتنا أورقة بالنمو فولنتري أورجانيزيشن وأورقة خيرية وتبرعات يصير مركزي تبرعات أو شقية وحو أورقة وحويان كشقية أما بقوا كهولين هي عاونتها ضدك تباليسان يضدك جلسان وجرجارستا يجربستاجا ضدك دربيشيفتا يلا دجالنك أفدا مسقط قية قبيلتها رمهانتي أورقة ترجت كيسي يوحويان شقديسي كوباد وحو قبل عبي إنه عاويو isla markaasina ay garab istaagaan dadka darbi jiifta ah waxaan caaw markaas u soo baxnay annaga oo u dhan xubnihii iyo mimbarskii ururku inaanu caawino dadkaas waxa ugu horeeyay ku caawino waxa ayaan koodhan maadaama lagu jiro xilli dhaxameed oo dhaxan badanna ay soo dhacday dadkaasina ay yihiin dad jilicsan waxaanu u keenay koodhan ay markaas ka gaboodsadaan dhaxanta markaas dhacaysa run ahaantii waxa ku tusaysaa caawinta la is caawinaya in dadka reer Soomaaliland ay yihiin qaar markasta jecel inay dadkooda caawiyaan gaar ahaan dhalinyaradu Allah subhanahu wa ta'ala sheego oo yiri wa taawunu 'ala al-birri wat-taqwa Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay isku caawiya birriga iyo wanaaga iyo alla ka cabsiga salajligeed waxa muhiim ah in dhammaan ummadda reer Soomaaliland ay markasta ku dadaasho sida u caawin lahaayeen dadkooda jecel marka Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay irhamukum fil ardi yarhamukum fis samaa dhulka iskugu naxariista Ilaahay baa idinku naxariisan doona waxa arladayda kan naxariiso samadayda kan naxariisan doona waa muhiim waana mid markaas loo baahan yahay in waxa weeyaan la isku naxariisto oo la barbar istaago dadka baahan ururka midnimana wuxuu markasta u taagan yahay sidii uu caawin lahaa una taakuleen lahaa dadka baahan adoon maasitii dhamaan adoon ugu mahadnaqaya baada kalsantiifina adoon maasiyay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أرتا إلهي بمحمد نو suurtageliyay anagoo ah midnimo voluntary organization inaan walaalaha yaga baahan darbi chiefka aanu qaybno caawimo koodhada run ahaantiina aanu dareenay markii aanu dhalinyar ahaan isla aragnay inay u baahan yihiin in koodhad loo qaybiyo iyo koodhad wax ka badanba dayacnaanta ka muuqata markaad aragto run ahaantii iyo dhaxanta wadankeena ka jirta iyo hoylaanta ku haysata runtii waa duruuf aad u adag waxaan isla garanay markii aanu dhalinyaro anagoo ah isu tagnay isla urinay isla eegnay inaanu dadkayagaas wax u qabanno haddana fishankeegu alxamdulillah ilaahay kan waa noo hirgeliyey kanka ku xigaana wuxuu noqonayaa insha Allah waxaanu jecelnahay inaanu kun reer oo Hargeysa degan haddii Allah weyna ogolaado aan caawino sanadka cusub iyo wixii ka dambeeyay haddii Allah weyna ogolaado midnimo wuxuu yahay haddii aan in yar iyada ka yara taabto waxaa la aasaasay 9kii bishii 11aad 2018 ujeedada loo aasaasayna waxa ahayd gargaaridda dadka baahan iyo dadka tabaalaysan run ahaantii haysan hoy ay cadceeda ka galaan iyo roobka